يا dadkaasi laga soo xiray gobolka Saraar gobolkaas dadkaas waxay haystaan dhul ay dawladdu leedahay oo guri ah oo ay leedahay wasaaradda xaalada xoolaha bishan 19keedii ayaa warqad u qoray markii wasaaraddu soo codsatay horena ay lagu wareejiyay suduwaha waxa lagu qaaday weerar dagaal baa lagu qaaday suduwihii 25 iyo rag la socda weerar ku qaadeen suduwihii iyo maayirkiiba aan ku warqad ku wareejiyay waxa laga soo saaray degmadii weerar lagu qaaday waanu tagnay anagu gobol ahaan anoo ciidan wata guriga dawladda wareejiyay ahayn ma haynay guri dawladeed total shaqo dawladeed oo dumarka lagu cid ku wareejisay iyo cid ku ogi ma jirto waxa hayn jiray maayirada marba isbedela goob cod bixinayna codkun baa la dhigi jiray waxa shaqo dawladeed bay u hayd wasaaradda xanaanaha leh haddana cid kasta halka fariin waxa ku diraya cid kasta oo ku jirta haysata hanti dawladeed xukuumaddu markay u soo baahato ayaa u baatay cid lacag geli kartaana ma jirto oo hadhow dawladda orodonto lacag baan deegaan gashana waayo sababta lacag ku gelinaysaa guri aan lagu dhiibin guri aan cid kugu wareejin anigu waxaan fulilayaa amarkii wasaaradda xanaanada xoolaha anigu marka hore waxaan ahay dibara saxiix gobolka Saraar haddana ku subaanahay aniga qof iyo beel iyo shakhsi midna anigu shaqadeeda ma aha aniga waxa shaqadeeda ah bulshada inaan isku wado inaan u dhaxwado systemka dawladana ee ay aan hirgeliyo waxa weeye saasa anigu qofna ma wato qofna isku xigno anigu shaqadeeda sharciga ma fuliya turasoo guud dawladda